السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا كسر وبرتن يوتيوب سهن channel. maanta muudin wuxuu ku saabsan yahay dalka Pakistan. Pakistan waa dal cad juqraafi ahaan qaaradda adduunka ugu weyn ee Aasiya. Pakistan waxay xuduud leedahay dalalka India, Afghanistan, China, Tajikistan. Pakistan waxay gumaysan Ingiriiska waxayna xorriyadda qaatay 1947 markaas u kala go'een Hindi iyo Pakistan. dhanka bar ee Hindiya ayaa ahayd meel ay ku badan yihiin muslimiinta oo maanta la magacbaxday dalka Pakistan kadib markii labadooda kala go'een markay qaateen xorriyadda. Pakistan waa dalka lixaad ee adduunka ugu dadka badan. qiyaas la sameeyay 2017 ayaa loo ogaaday in dadka dalka ay ka badan yihiin 212 milyan. Pakistan waa dalka 36aad ee adduunka ugu dhulka weyn. Caasimadda dalkan laga maamulo ayaa magaalada Islamabad. Dalkan wuxuu ka kooban yahay 4 gobol oo kala ah gobolka Punjab oo ay tahay caasimadiisa Lahore, gobolka Sindh oo ay tahay caasimadiisa Karachi, gobolka Khyber Pakhtunkhwa oo ay tahay caasimadiisa magaalada Peshawar, gobolka Balochistan oo ay tahay caasimadiisa magaalada Kuwait. Fayraska ugu horreeyay ee saameeyay kombiyuutarada ayaa lagu sameeyay dalka Pakistan waxaana loo yaqaanaa Brain. lacagta dalkan laga isticmaalo waa Pakistan Rupee. baabuurta waxay iska baasaan dhanka bidix. furaha dalkan waa +92. Pakistan waxay leedahay meel lagu sameeyo filimaanta oo loo yaqaano Lahore iyo Peshawar oo lagu magacaabo Hollywood. ciyaarta ugu sareysa dalkan laga dheelo waa ciyaarta hockeyga taas oo ay mar badan ku guuleysteen. laakiin ciyaarta cricketka ayaa ciyaarta ugu shacbiyada badan ugu taageeraha badan ee dalkan laga dheelo taas oo rasaaraha xilka haya Imran Khan oo ku soo caan baxay. Pakistan waxay ku leedahay caalamka shaqaale ugu badan ka shaqeeya waxaan ka shaqeynaa dalka Mareykanka iyo dalalka Carabta. Pakistan ayaa dalka ugu badan ee lacag dibadda looga soo diro. Pakistan ayaa ku jirta dalka afraad ee adduunka ugu sareeya xagga internetka. Pakistan ayaa caan ku ah samaynta kubadda cagta taas oo sababtay 2014 inay Brazil ka iibsato 4 milyan oo kubadda cagta ah. Pakistan ayaa ku jirta dalka toddobaad ee adduunka ugu awood badan dhanka ciidanka marka loo eego ciidanka tayadooda, qalabkooda, heerka ay joogaan taas oo mar badan dagaal kula galeen gobolka dhibaatada ka jirta gobolka Kashmir. Gobolka Kashmir ayaa ah gobol ay haystaan Hindiya qaybna ay haystaan Pakistan laakiin ay yahay gobol muslimiin ah dal muslimiin ay degan yihiin qayb ka mid ah Hindiya ay xoog ku haysato. dagaalaas oo sababay inay Pakistan ka go'do qaybta bari oo loo yaqaan maanta dalka Bangladesh. Pakistan ayaa ah dalka kaliya ee Sunni Muslim ah ee sameystay hubka nuclear-ka waxa go'an ee nuclear-ka kaas oo tijaabiyeen 1998 markii aad iyo aad u maasantihiin dadka fadlan subscribe saar nagu soo bir like saar share garay. Thanks all of you.